السلام عليكم صحابتي habeen wanaagsan ku soo wada caawi ciyaaraha waxaan soo qaadan doonaa warbixinada ugu dambeeyay Kamal Daariga Rodri waa Real Madrid Manchester City waa isdhiibtay waxaan eegi doonaa warbixinada ugu dambeeyay kooxda Barcelona iyo suuqeeda Chelsea kala iibsiga ciyaaraha caawa waxaan eegi doonaa warbixinada ku saabsan Arsenal iyo warbixino kale waaweyn oo guud ahaan ciyaaru baan eegi doonaa saxaabtay subscribe kana saara ku channelka su'aalka ugu jiray shirti lagtan iska dirkan saxaabta ciyaaru jecel bal barnaamijkeenu gaarsiina Viga Mamus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 afargees habeen wanaagsan asxaabtahay bal ciyaari baan eegi doonaa xooyaan Manchester City waxay u muuqataa inay caawa isdhiibtay kadib markii Saka uu soo baxay war sheegaya Rodri iyo Real Madrid inay wada hadalo ay bilowdeen yani Rodri ma ahan Rodri mar laga dhameystay in Man City iyo Real Madrid ay Saka directly wada hadal ay bilaaween waxay City caawa يعني ميداس او عدايسay Rodri waqtigiisina Man City dhamaaday sidaas daraadeed ayuu boodi ay caawi aadeen nimankii Man City ahaa wayna ku kalsoon tahay City ilmaamaha soo aadan ay la wareegayso Master Ayub ya waliba waxa weeyaan adba wada hadalan markan loogu kalsoon yahay markan iyo markii hore kala duwan marka City waa ka khuusatay Rodri markan waxa weeyaan iska ayubayna aniga ya Ayub iyo Abdulqaadir iyo Umar iyo Man City laga helaa marka alcaamu waxay taagan yihiin Man City aniga Ayub leen ku cimaamadanayaa marka Rodri waa sababta isleeda marka qaar hadaadan kooxdaadu joogin tababar weyn ya oo weynka ah hatta ciyaartooy qaar kooxda kuma celin kartid Pep Guardiola baxa markii liiri waa kaas Bernardo tagay waa ka Rodri tagay ragiiba aan la wada celin kareyn marka qaar hadda tusaale ahaan waxa laga yaabaa hadii aad Arsenal isku daydo ciyaartooy ka soo qaadato sida Declan Rice oo aad doonato ya معقول ما صوتها ويران رئيس احترام يا توبرها ولا او ارتيتا waxa loo arkaa maanta goodka Premier League oo tobaraasha maanta good ba Saka ee maanta Arteta inta dhan waxa dhan wada jadiid wa dadkan hadda la soo jacburnawa ko waayeel ku maqan yahay ko ilmo had isku jacburi raba adiga wax le isdhaxyaacaya meeshi waxaad arkaysaa inuu isku hayay meeshaas marba haduu ka dhaxbaxay ciyaartooy qaar waramaantu Jeremy Doku meel kale haduu ka soconaa haduu ogaan la mar oo ka teelaade Jeremy Doku haduu ogaan lahaa in kooxo kale haduu soo galo ay doonayaan uu meel kale ka soconaya haduu isdhiilaha awoodaas yani hada sida Rodri oo kale oo qiimasaas noocaas u leh haalan ku jira haalan la meeli karo hada weeraan haalan asanan wili ma soo jeesanin wuxuu taagan yahay halko ama labadoo sano heshiiskaaga jawaan waaye nimankan la sii joogo isla runtii bariho laakiin abi waa fardi baxay Madrid iska diidi karta malaha iyo waxaas uu ku hayay meel dhaxdaas ya alcamu marka hadaadan marka tababar weyn haysanin ciyaartooy weyn ma cishan kartid sidaas daraadeed caawa series City Ayub qarka u saaran tahay marka City waxay ka fikiraysaa Ayub inuu hadda u ciyaari doono kooxda ama inuu imaan doono 2-2 marba Rodri baxay Ayubkin hadda idin ciyaar sasayd fiican iska fiiriya Ayub ya marka hatta arinta marka oo go'aanka oo Ayub wuxuu ku xiran yahay xaaladda Rodri ku dhamaato hadii Rodri hadda u baxo waxa laga yaabaa Ayub inuu ma taqaana kooxda hadda u ciyaaro laakiin haduu Rodri sii joogo waxa laga yaabaa Ayub xaga dambe inuu kooxda ku soo biro laakiin ay sii gataan kooxda kale ama uu ugu sii joogo alcamu marka Rodri ma series ba Madrid mu qarku saaran yahay ha Rodri saacad u dambeeyay wadallada labada kooxba oo bilowday stage-ka waa laga gudbay ciyaaryahanka ma la heshiisay Real Madrid maray dhaaftay arinta Rodri ka gudbeen ila Madrid inuu qaba alogyahay wara Rodri lagu soo weyn halkan ha wiri ma ani ma diida wiri macna marka already marka waxa weeyaan City baa laga dhameysanayaa saacadu soo socdo marka alcamum intaasu waa inta marka City oo caawa Ayub qarka ugu saaran iyo Rodri inta u siido marka habeensan hadaad maqasho City Ayub ay qaadatay hadii kale sidoo kale habeensan hadaad maqasho Rodri Real Madrid uu noqday warkaas alooyaba u malayn hab rumayso hadii uu raado Rodri caawa Real Madrid buu isla noqday ama maalmaha soo socda intaasu waa inta halka Grealish iyo Calvin Phillips laga tagay listiga ciyaartooyga Man City Asia u safray waa laga tagay labada nin kooxdu ma ciyaarin ilaa iyo January Rodri waa ninka la yiraahdo Grealish waa lagu soo xamaashtay Jamligu mar soo qaaday asaga wixii ka dambeeyay Jamligaas uu kooxda la qaaday kadib ya ninku saameyn fiican maanu yeelan ya kadib Jamliga hada waa ka meelaha England uu iska jidadku iska fadhiya uu isaga cabaya meeluhu maalin cad hurda maalin cad galab uu jidadka England ku hurda ninkan asoo cabaya marka kan wax mustaqbal dambe aayada malaha كنا وقتي كان dadka Manchester ku khasaartay waxa la jiri Pirlo Andrea Pirlo la jiri arku waa Ingiriis maxay faanayeen dad marka labadooduba waa laga tagay listigo taas waa taa arinta Barcelona ku aadan
كوندا iyo Tottenham waxba kama jiraan baa runtii Barcelona marka iyadii oo meelaha qaar difaacyada qaar iska galab ka yihiin oo hatta la hadii uu ka baxata ninka oo Uruguayanka ah difaaca flop ka noqday waqtiyadan dambe Maguire caadi isku bedelay birigu Maguire hadda Maguire weynka waaye birigu Maguire hay soo maraa ninkaas Uruguayanka haduu baxo waxa la islahay kundaba difaac dhex laga ciyaarsiin markii Barcelona difaac isku jacburinaysan haddana waxa la leeyahay Tottenham armay rabaan Jules Koundé laakiin warka wali war series ma han baa leeyahay runtii marka alcab suuqa Barcelona wali waa sidii labadin Real Madridna Rodri bay hadda u sii socdaan in ay la wareegaano xilli sidoo kale wax weeyaan Barcelona sababta ay u tahay weeyaan intii yani cunug yaro aan la fahmi karin inay soo qaadato waxa u dhaama inay soo qaadato nin Roberto Lewandowski oo kale oo dhaliya ah oo 2 sano bis leh Barca ciyaaray 2 sano markaad fiiriso xaaladda maanta Madrid isdhisid waxay u baahan tahay hal nin oo Harry Kane oo kale laakiin Harry Kane isbuuciisa socodkiisa cusboonaysiinaya ee Bayern Munich marka hadda fiiri abaalka Barcelona u hayso Lewandowski Real Madrid waqtiyaal maamul ma taqaana markii ninkan duqul ugu soo darsaday duqooshinka qatar waana Chelsea ma la yaabay duqooshin kooxda ku soo darsanayso duqooshin ka fiican dhalin raajiro macna duqooshinka garansiya waa hore ka jibaal falayaan inkastoo Henderson iyo hadda iyo Welbeck ragii hore aan ahayn laakiin waxa la rabaa way aragnimo hal qolkan wada ilmoobay leh da'du 20 sano jira la tilmaamaa hadda dadkana soo galaya 14 sano ka weyn ciyaartooy blue raggan hadda soo galaya kooxda Chelsea laakiin qolka bay u yeelinayaan uba واسكو يعني عيارتو اسكو دقيان والو كلا حرينيا والو كلا dhiirigelinaya meesha alcamum firi Laporte abaalku uu hayo Lewandowski wakiilku waxaan arkay Lewandowski Saudi wuxuu ma taqana Laporte wuxuu ugu yiri u sheega Roberto waanu jecelnahay wuxuu qayb ka yahay historigeena waa ninka Barcelona badbaadiyay uu leeyahay runtii wasabta markasta uu dhaay Barcelona ay 100 milyan hal qof oo oday ah oo 3 sano labis ama 60 milyan ku soo bixiyay 3 sano labis ku xamaalaya yaa ka fiican cunug la iska sugaayo inuu soo kaco marka wuxuu leeyahay ninkaas uu sheegay wuri wakiilka la dhaha uu sheegay Lewandowski wuuna badbaadiyay sax waa waqti hadda Madrid ay cabaadayso 0 koob 2 sano Lewandowski waqtigiisii waa hal qof marka Barcelona garbaysa hal qof oo saas u taagan yaa alcamum waxa weeyaan hatta mustaqbalku leeyahay hadii Barcelona kan shaqo uu ka raboodo inuu la shaqeeyo way ogolaanayaan buru Barcelona Lewandowski inuu la shaqeeyo wata xal idin dhahay hal qof baa balanta ka soo bixi kara waana Bedri inta kale balanta kama soo bixi karaan kadib markii Delefonte uu ku soo sabartay yani jirkiisa ninka la yiraahdo Cucurella ragii kale garka ka balan qaaday Yamal madaxa inuu bangi ka soo dhiganayo uu balan qaaday Gavi iyo ninka la yiraahdo maxaardaayay Faraan oo yiri madaxan soo xiiranaya Basayul iyo Bedri waxaan yiri Bedri ugu dhow maadaama Bedri kaliya timo uu soo cadeysan karo White uu ka soo dhigan karo Messi waa ka dhigan jiray marka kaas ugu dhawaan diray kan inuu madax xirto kan garweyn uu soo yeesho kaana inuu ma taqaana yani timaha binka ka soo dhigto hal Bedri ugu dhawaadin laha waa ka Bedri wuxuu yiri ana hadan ka soo laabtay dhayarta waa ku tuurna wuri aniga balanso ka soo baxay wuri aan qaaday ah hadan walka ku guuleysan tim cadaan baan ku ciyaaraya inta Henderson uu heshiis buu la gaaray kooxda Brentford si heshiiskiisa loo kansalo si uu dhameystir ku birida kooxda Chelsea waa series saacadu dambeeyna Chelsea waxay qarka u saarneed la wareegida Welbeck iminkuna Henderson labada saaxiiba hal marba isku dub saacadaha soo aadan loo soo bandhigi doonaa marka Henderson waa rasmi oo kabtankii hore kooxda Liverpool heshiis 2 sano ayuu la gaaray kooxda Chelsea ilaa iyo 2028 marka ninkan waa kabtankii ugu horeeyay kooxda Liverpool waa ee koob kasta ruuxay waa ninkan wax kale ka badnaamaanu jirin berigiisii ya alcam Welbeck heshiis lagu laatay labadooda la isku dhaqay labadooda xaal heshiis 2 sano soo socota marka ilmaana kora ya Enzo hadda wuxuu muuqata Madrid inuu ku biireen iska sii joogayo dalab ma haysto marka Dan Welbeck wuxuu noqonayaa ciyaaryahankii ugu horeeyay oo wada ciyaaray Manchester United Arsenal iyo Chelsea oo wada ciyaaray Premier League buu noqonayaayo marka taas waa taa xilli Joe Pedro Saudi ma isaga ku dhiisa uu inuu ismuujiyay waa la isku yimaado taagan yahay runtii maadaama uu arkay Welbeck oo la sheegayo laakiin hadda Liam Delap meesha ku fashilman iyo wariyahanka kale oo kooxda lalad ugu yimaaday in iska baxan baa laga yaabaa labada Saudi ma intuu bedel ku soo galay hore intuu ka caawiyo gool 3 goolna dhaliyay ninka la yiraahdo Joe Pedro ma ilaabi karto Chelsea in academy-gooda hadda lagu caynayo inaysan yani ciyaaryahanno Man City ku bateen weerar la ciyaaryahanno Man City ka yimaada jooga halka Blue Cobham ay ka yimaadeen kaliya 3 ciyaaryahanno academy-ga ha yeeshee Chelsea waxa jiray wiilal yaraanta ay ku soo haysteen laakiin Shan Firi Olizo kale iyagu kamid ahaa 2009 ilaa 2016 Declan Rice 2006 ilaa 2009 ilmoodo kamid ahaa Diamonde asaga xataa uu Janus ku soo mar academy ma aha laakiin wuu la tababartay way diideen
جمال موزيلا لابا كنتم يكون إلى لابا كنتم إسقال يسوي هيسن كور وحنا يعني هدي اسكو سو ودا آدي لهين لو ما نولان لهين ميدا كلا كيركس أيا وش جاي تاجراشة كوحدة ليفربول إن هذا ليفربول هيشم عنكي لو بهنابا أندوني أوريل حلي هي إنه آد وفر حي إن كوحدة لو ديبو نينك كان أوريلا يا لابد بحي هرؤوس ودا شقيان كوحدة بانمود كيركس وحول شيء أوريل سوين أهور مريي كوحدة أي ودا جوجين لابد يسنو أول شقيني ولا وحول يري anigu ku dheedo horumar baan ku sameeyay wiilay markaan ag joogay tababaraha ka wuxuu sheegay inuu jecel yahay tababarahan kubadaha bracing-ka ah raacashada tababaraasha qaar waxay leeyihiin ninkan wuxuu ciyaaraa kubadaha kooxaha yar yarka camal uu ciyaara ee raacashada badan laakiin ciyaartoydu waxay ka dhigaysaa kuwa aad u shaqo badan oo ku dagaalama garoonka waliba wuxuu leeyahay kirkas ciyaartoygu wuu dhiirigeliyaa wuxuuna ka dhigaa mid kastaba inuu aad u dagaalo alcamum hadda inta lagu maqan yahay ciyaarahan isdiyaarinta kirkas isagaa kooxda hogaaminaya maadaama kooxda ka maqan yihiin Van Dijk iyo Alisson sidoo kale kooxda ka tageen Salah Robertson Ibrahim Konate marka wuxuu leeyahay Liverpool hadda un bay heshay tababar rageedo mid kale Chiesa wuxuu taagay Liverpool baan ku haystaa wuxuuna sidoo kale Liverpool sheegay in la ku lahayd inay xaqaga hor la soo dhaafay ku dhameystaan booska Champions League kadib xilli ciyaareed xun ay qaateen marka wuxuu sheegay inuu jecel yahay la shaqeynta tababaraha cusub uuna rajeynay Liverpool uu sii joogo sanadkan ay koob ku tartamaan toddobaadkan ayuu gool leh ciyaarta Liverpool 4-2 ay kaga badiyaan kooxda Sunderland laba sano ka hor buu 10 milyan ugu yimaaday kooxda kubadda cagta Ajusta 26 ciyaar ayuu xaga la soo dhaafay Premier League u ciyaaray Liverpool laakiin kaliya hal ciyaar uu safkooda ugu soo bilowday marka Chiesa wuxuu leeyahay halkan baan joogayaa mid kale waxa la isweydiinayaa ciyaartooyga Mohamed Salah iyo ku beerida horyaalka Turkiga waa looga digay waxa la Mohamed Salah qaadataan dhaqaalaha Turkiga hoos buu dhacay maadaama Mohamed Salah Mareykan iyo Sacuud hatta laga doonayo mushaaraad waali uu rabo Turkiga wuxuu noqday meel soo jiita ciyaartoy badan oo caan ah iyagoo siinaya mushaaraad sare nolol raaxo leh iyo taageerayaal xamaasad badan Mohamed Salah ayaa la xirinay iminku Besiktas laakiin qooro ayaa ka digaya mushaarkiisa culayska dhaqaale inuu ku noqon karo kooxda waa Besiktas hadda Mohamed Salah soo gadataan bal runtii kambiyaal idin galay runtii kooxaha weyn ee Turkiga waxay lumiyeen ku dhawaad 445 milyan 4 sano gudahooda yaa ka luntay inkastoo ay xidiga badan la soo sixdeen haddana guulo weyn Yurub kamaan u keen fiiri 2001 ba ugu dambeysay in sideedamaadka Champions League ay ka yimaadaan Galatasaray Besiktasna iyana sideedamaadna ka yimaadaan Yurub League waxa ugu dambeysay 2016 ugu dambeysay marka iyagoo saas kharash badan u guraya haddana tartamada Yurub awood badan kuma laha qoliyahan marka waxa leeyahay Mohamed Salah hadda soo qaadataan kharash badan baa idinka baxay fiir horay Osimhen ayaa la sheegay hadda inuu ka qaato ku dhawaad 300,000 mushaar isbuuci waa ciyaartoy ugu mushaaraadka badan Yurub ka mid yahay halka sidoo kale waxaa jooga ciyaartoy badan Ederson N'Golo Kante Sane waa Turkiga gudaha kuwa ka ciyaara Gundogan Trossard Greenwood Ake Gundozi marka khubaradu waxay sheegayaan in Turkiga uu ku soo jiito ciyaartooyga tartanka Champions League inay ka qayb galaan kulamo weyn oo derbiya nolol raaxo leh hoteelo iyo maqaayado heer sare taageerayaal xamaasad badan laakiin waxa leeyahay lacagtaas dhan oo ka baxaysa hadana Turkiga awood badan kuma laha wali kooxooda Champions League saacad ugu dambeeyay waxa la arkay orda reer Kenya ah oo Arsenal fan ah ayaa markuu ku guuleystay orodkii bilada dahabka waxa uu galay dabaaldegii Yogres ilaa wuxuu sheegay sababta uu galay dabaaldega Yogres uu sameeyay wuxuu sheegay inuu yahay taageero kooxda Arsenal waxaanu yiri Yogres waa ciyaaryahanka ugu fiican weer dunida hadduu sidaas yiraahdo ma la yaabeen maxaa yeelay way yimaadeen Arsenal horyaalkii buu la qaaday ay 22 sano ku dhibtoodeen mid kale Martinelli waa isna iska aqal galay waa ninka Arsenal suuqa u ay saaray season kan inay iibiyaan doonayaan waarki doona haduu jibin doono Oxlade Chamberlain ciyaaryahanka ugu aqaalisan Arsenal laga iibsado 30 milyan Chamberlain buu ahaa laakiin Martinelli ugu yaraan 30 milyan ka badan baa lagu iibsan doonaayo marka weligeed Arsenal ciyaaryahan iyaga laga iibsanayo 30 milyan ka badan lagu iibsan marka dabaaldega saaxiibadiisa kii World Cup-ka uu ku sameeyay ayaa ay sameeyeen marka taas waa ta Zidane oo hadda Faransiiska tababar u noqday ninkan waa nin waaweynka ah 9 final intii uu ku wada guuleystay waayihiisa hadda marka Faransiis waxay kari laayeen Euro inay ku guuleystaan sida marka koobka Euro-ga ee lagu qabanayo meel ay ka mid yihiin England iyo wadamada ku hareeraysan in war weyn uu ka keeni doono 2028 Pochettino Mareykanka u bagabaalay runtii World Cup-ka 2030 inuu isaga hogaamin doono ayaa la tilmaamaya heshiiska uu cusboonaysiin doono waana World Cup-ka saaxiib damay buuq badan uu ka soo baxay marka Trump aad saaxiib la noqoto Infantino markuu Trump saaxiib la noqday wuxuu bilaabay baa saaxiib u dambeeyay hadal yaab laha oo ah in koobka adduunka uu share ka siinayo madax ha noqdaan xataa siyaasadley waxa xataa ku jira listiga arrintan waxa laga la tashaday reer Trump
gabar wiil waxaa jira oo qaba gabadha Trump ayaa ku jira xataa dadka doonaya in qaybta saamiga ganacsiga FIFA in iyagu ay iibsadaan hadda marka waxaa jira buuq weyn sac ugu dambeeyay waxaa laga baqayaa marka haddii dadkan saamiga laga gadayo ee siyaasadleyda ah haddii kubadda cagta kusoo lug yeeshaan hadda Rosal Afinoyaye waxaa laga baqayaa mustaqbalka kubadda cagta inay noqoto mid lacag un laga sameeyo koobka adduunka meesha 4 sano mar la ciyaaro in 2 sano mar laga dhigo in koox wadamada qaar meesha inta banoonida lagu dooro lahaa lagu doorto wadamadaas lacag mana soo gelinayaan amal waxaasna baa laga baqayaa ciyaaruhu in la kordhiyo waa laga baqayaa runtii marka FIFA wadamada Yurub ku mudaaran waxay yiraahdeen haddaad FIFA كو waxay yiraahdeen kubadda cagta lama gadan karo haddaad isku daydaan kubadda cagta inaad niman siyaasadleeyaad soo fargelisaan saamin aad ka siisaan qaybta ganacsiga walagu aday qofka markuu ka soo galay qaybaha ganacsiga leeyahay lagu leeyahay runtii inkastoo FIFA yiraahdeen kuma lug lahaanayaan sharciyada kubadda cagta laakiin marba dadka ay soo galaan way bedelayaan bal mar kubadda cagta si loo rogrogo kubadda cagta Donald Trump la agtay rabtaa kadibna waxay isku bedeli doontaa mustaqbalka in raado wadankaas farta laga saaro koobka buuq la marare ya saas baa laga baqayaa Yurub waxay yiraahdeen waan ka baxaynaa tartanka marba haddaad warkaas keentaan alcumum intaasna waa inta Muwani wuxuu qarka u saarayay wali cajuusta oo Juventus buu ku beeriyaa waa lagu dhawaaqayaa saacadaha su'aadan nabadgelyo saaxiib